bulshada reer Somaliland ee dalka Jarmalka iyo dalalka dariska la wax lagu wargelinayaa in wasiirkii hore madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashacab oo dhawaan shaaciyay inuu taagan yahay jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye uu safar ku mari doono qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub waxaana uu ugu horeyn ka soo degi doonaa maalinta Khamiista 19 bisha 12 sanadkan aynu ku jirno magaalada Frankfurt halkaas oo kulamo guud kula qaadan doono guud ahaan bulshada reer Somaliland ee dalka Jarmalka iyo dalalka nawaaxigeeda haddaba jaaliyada guud ee Somaliland ee dalka Jarmalku waxay bulshada reer Somaliland ee degan dalkani ku wargelinaysaa in 12 bisha 12 maalinta Sabtida ay xaflad si weyn loo soo agaasimay ay ugu qaban doonaan magaalada Frankfurt waxaana bulshada ku booriyeen in ay xafladani ka soo qayb galaan si ay xog dhameystiran uga helaan xaaladda bulsheed iyo siyaasadeed ee Somaliland xilligan ciwaanka goobta xafladdu ka dhacayso waxaad ka dheehan kartaa muuqaalkan wixii macluumaad dheeraad ah ee aad u baahato fadlan soo wac telefoonada shaashada kaaga muuqda